دجناشان وباهنا نبض بان وباهنا قريهان أول عمران وباهنا ولا التنمى وين بند موجسات لكن ولا التنمى الصومالي وحيو باهنتها إلا ميل مسي ولا التنمى عدو النمى ويكسر جدا أنا وحنا مسنا إني شيء أنا جينا وقت لنا نروح إن نروح استانوا ملايين النار درس كسر أنا نتوه أنا نروح نلعب أقبلين دور الشارع سافرنا إن قيب كيالا يندوري حيلتها وأمشينا ويوجي يبغى لسوي واحد سؤال كلا قصر كل سؤال ويسود وقتها أروح عندي لها يا ما سون بين نقوني أروح عندي لها وقت ما سنتين حل دبعنا ذا النوغي مع الحلقات وقت ما سنتين قولي إني ما ديواتين قوش لا يدفت لكن وحندونينا شالينا وقت هذا الشيء لا بعرف الموضوع حربين اللي بنا قرن الصومالي سوق الملك برضه جبل الانجليزي ما ينسوق الملك قرن الصومالي سوق الملك بعدين تقرن الصومالي سوق الملك بعدين تا إن نجحين تا يكمل أنت يقول إيشك دور زي جبلان وبعدين الصومالي واي تاريخ الحس الدوتو جبلان يقول حجرتها ومضى الصومالية بعدين إنسان أدي أدباني كان مع الإلهي بقى أجري حصان الكسيني جبلان والحس الدونا وعن لا يحل ما نلعب صور الجبلان قال أنا أور مركز هذا رتين باكين يقول لي زين باكين إسعافين باكين إلى أوصى باكين والله ما جاء ساكين أور مركز باكين إن أور الأوصيون ما أنت جبلان odayada halka fadhiya maalinta ay weydo ayaa la garan doonaa waxa ay dadka dheeriina waxa weeyaan arinta iyo odayadu gacanta ku hayaan iyo dhalinyarada qoriga u haysa iyo israacsanaantooda iyo madaxdooda macnaheedu waxa maanta hadaa بريتا amaantaano maanta garan weynaa waxay warikooda qaado weydaan waxaan leeyahay marka ugu horeysa walaalayaal oo ogaado odayadaas waxay ku fadhiyaan qiimaha iyo waxay soo mareen waajibkoodii way guteen annagu waxaanu nahay waxa la yiri arrin nin laba u galgasha tolo uu irkiya annagu waanu irkinaynaa idinka aali reer Jubbaland nabadgelyadiina iyo go'aankiina inaad qaadataan waana idinka mahad celinaynaa nabadgelyada ku soo nooleydeen wanaagga ku wada joogteen waa sharaf iyo qiimo iyo dareenka dadka soo kiciyay ka weeye iyo inaanay burburin waxaan leeyahay Kismaayo ma aha meesha kaliya oo maanta la leeyahay loo soo gurbanayay waa sida hore loo yiri Soomaaliya waxa way xudunteedii waa Soomaaliya oo baabaada maanta hadii la dhex galo qof kasta oo Soomaaliyana waa og yahay waxaan ka nimaanay Muqdisho intii sanatarka yimi oo aftaanka ahaa oo xogagaalka ahaa ayaan horta la qabaa kaliya waxaan rabaa maadaama la ii istaajiyo dumarka maanta in Allah Allah annagoo mashxaradayna oo qaylinayna dadkii waxaan ahaa aniga wax ka keenay isbedelka oo farmaajo dhahay barkan mana uga dhahayna qabiil ama dhinac soo jeedasho waxaan islahayn caatifadu marnima nagu jirtay waxaan isdhahaynaa Muqdisho waxa laga dhigayaa ee wixii uu sheegayay oo la akhrinayay maadaama dumarku mar walba waxay jecel yihiin nabadda waxaan gooni u laadlayaa 8 gabdhood anoo ku faraxsan gobolka waxaan ka imaaday oo laga soo doortay Puntland hal gabar baa ku jirta gabdhaha 66 idinka nasiib baa leedihiin 8 gabdhood baa keenay inaan ku matalno dawladdeena aan ka tirsanay doorashooyinkan inaan goobjoog uga noqono oo uga waranno waxa meeshan ka socda ayagu waxay ka badin waayeen inay dawladda soo adeegsadaan inay hay'ado shisheeye yiraahdaan nooga wardoona meeshii markay kor u boodaan inay warqad wiiftaa habeen saqdhex iska soo saara intaas ka badin waayeen laakiin anagoo batalayna dawladdii halkaan ay la joogtaa lama yaabayo in safiirka qaramada midoobay halkan yimaado igad inay timaado in Ethiopia ay timaado
in amisom ay timaado iyo waddamo kale inay yimaadaan laakiin marka baarlamaanka lagu arko meeshii dad badan oo Soomaaliya inta ku soo wacay maxaa meesha idinka khuseeyo aad u tagteen meesha ka rabteen kuwaasna waa u ogol yihiin inay meeshaan joogaan oo ka shaqeeyaan bay u ogol yihiin runtii dee maskax wareerka iyo jahwareerka ummadda Soomaaliyeed iyo faham darrida dawladda haleeshay bay qayb ka tahay inay u ogolaadaan dawladda Itoobiya inay waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo kulligaa annagoon is ogeyn waxaan u soo gurmanay waa gurmad qaran iyo badbaado qaran weeye badbaadada maanta Jubbaland iyo systemka ay soo dhisatay iyo nabadda ay samaysatay siduu ku yimid wada ognahay anigu waa joogay goobjoog banka ah madaxweynaha maanta jooga halkii dagaalka uu soo maray maanta waa halka nabadda lagu fadhiyo waa ogaan frontline kan u fadhiyay marka maanta in ciyaar lagu burburiyo umaleyn maayo Soomaaliya ogolaanayso badbaadada Jubbaland waxa uu badbaadada Soomaaliya ana misanahan sidoo kale labada aqal ee halkan fadhiya waxay ka socdaan degmo kasta iyo gobol kasta iyo maamul kasta oo Soomaaliya ay ka socdaan sababtana keentay waxa weeye maanta haddaan isku eegno annaka nagu dhacaysa marka waa ku mahadsantihiin sida aad maaragtay u midoodeen badbaadsanaysan nabadda haysataan iyo walaaltinimada qabyaaladdan uga fogaateen dad muslim oo walaalaabana diintana horumar hogaaminaysa taasna waxay sheegaysaa xaq inaan u hiilino annagu waxaan markaa u jeedaa halkan xaq u hiilino haddaan nahay odayaashii reer Jubbaland annaga hagar ka geli mayno Soomaalina hagar ka geli mayno Allahu akbar waxaan idiin sheegaynaa inaan Jubbaland dhisayna in nagula dayan doono dhammaan Soomaaliya ay nagu dayan doonto wanaagga aan samaynayno insha Allah waduu Ilaahay raalli ka noqdo dad annaga waxba uma dhimayna waxaan idiin sheegaynaa Soomaaliya wax dhibaato on Soomaaliya ku hayna ma jiraan Soomaaliya dhibaato kuma hayna in dhibaato nagula qabto ma doonayna baarlamaanka cusub waa u hambalyeynaya waxaan kaloo u hambalyeynaya guddiga doorashooyinka oo runtii shaqo fiican oo hufan qabtay baarlamaanka labaad waa baarlamaan dhalinyaro ah sidaan ka arkay waa baarlamaan wanaagsan kuwii horena waa wanaagsan yihiin way mahadsan yihiin kuwii hore shaqadii ay soo qabteen kuwaana waxaa laga rabaa shaqadii hore ay qabteen xildhibaanadii hore mid ka wanaagsan inay sii qabtaan waxaa idinkula talinayaa midnimada Jubbaland in la ilaaliyo midnimada Jubbaland waa muqadas haddaan isku xirannahay qofna soo dhaxgari kara ma jiro qof intervention ugu sameyn kara ma jiro waxa weeye annaga ma doonayno in balaayo noola soo duuduubo talyaanigu wuxuu yiraahdaa kii semina vento raccoglie tempesta ninkii dabeel abuura duufaan buu guran doonaa meeshan aad joogtaan iyo sharaftan aad leedihiin iyo dawladdan aad haysataan kuma imanin baryo kuma ayna imanin waxaad ku timaadeen wax qiimo weyn bay idinku kacday dhiig badan baad u daadiseen hanti badan baad ku bixiseen waqtigiina iyo juhdi baad geliseen sidaa darteed waxaa waajib maanta waxa saacad ku hesheen inaad ilaashataan difaacataan isugu tag idinkoo midaysan inaad isugu tagtaan hadday tahay madaxda noocyadeeda kala duwan dhammaan bulshada odayaasha waxgaradka salaadiinta aqoonyahanka dhalinyarada dumar laakiin waxa la ii sheegayaa inay halkan wada fadhiyaan madaxdii dalka xildhibaanadii aqalka sare ummadda Soomaaliyeed golihii baarlamaanka ee dawladda federaalka xafladdan ujeedadeeda waxay ahayd soo dhaweynta xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed oo aqalka sare iyo golaha shacabka iskugu jiro iyo u duceynta xildhibaanada cusub ee reer Jubbaland iyo mahadcelinta salaadiintii soo xulay oo 3 milyan oo reer Jubbaland ka soo dhaxulay 75 ka xubnood waxaan oran lahaa xildhibaanada qaranka oo labada golaha ee moralkooda iyo damiirkooda inay Jubbaland waxa ka socda intay ogaadaan wax ka toosiyaan ka marxaati kacaan u yimid Ilaahay idinka jasasiyo xildhibaanada reer Jubbaland doorashada ugu horeysa Britta gelisaan talada odayaasha idin soo xushay oo 4 sano soo socotay idin siiyay go'aan inaad yeelataan
qaata talada walaalaha qaranka nooga yimid oo waayo aragga ah ay idin siiyeenna qaata jubbaland u hiiliya iyo shacabkeeda sida laydin xushay xilkiinna u guto doorashooyinkas daba socdo dadkaad ka dhalateen waa dhex joogtaan wixii u dan ah waa taqaanaan wixii lidinku soo xushayna waa taqaanaan waddadaa mara haddii doolar idin beddelo waxaad ogaataan waxaad beddelanaysaan inay nabaddiinna tahay waxaad beddelaysaan inay midnimadiinna tahay waxaad beddelaysaan agoontiinni iyo dhaawiciinni iyo dadka halgamayaasha oo dalkan u soo dhintay xaquuqdooda inay tahay baad garanaysaan walaalaha musharaxiinta ah ee u tartamaya hoggaanka jubbaland waxaan ugu yeeraynaa inay tartamaan baarlamaanka ka hor khudbeeyaan shuruudaha loo dejiyey guddiga doorashada madaxa bannaan uu dejiyey maraan nasiibkooda ay tijaabiyaan halkaa wixii ugu soo baxay aqbalaan laakiin howl ayna lahayn ayna gelin dastuurka dalkan u degsan oo qaranka Soomaaliyeed iyo kan Jubbalandba doorashadaas hoggaankeeda iyo maamulisteeda guddigaas dastuuriga ah ayaa loo idmaday